السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم جدين سكون مد وحوي وترتنا قنات كاس وعلى الشيعين ودحيو أرض في 3 استعداد وفي عنته ونسود ويننا إن ترتكاس دعوه ترتك عمرك لقى هلا يو هالقضب ومبندون نايل السوق كنت داس كوهاي سافرها ترتنكا إن ترتكاس سوسي عدالة دعوه tartamo hore la soo qabtay tartamadii hore wixii laga bartay inay khibrad iyo waay aragtinimo ay noqoto laga hortago sayna mar labaad u dhicin marka ilmuhu wuxuu ku qancayaa hadduu ka badiyo iskuulka Sheekh Ali Ibrahim yaa hadduu dayib guray badiyo arday labada Soomaaliland ruma badiyay wax qiimo weyn oo ku fadhidaa ma jirto waan ahayn isdhexgal laakiin wixii uu noqday ilmihii in la qanciyo waxa lagu qancinayaa bil cadaalad marka guddidaana waxaan ku qancay inta imka koladii electronic loo bedelayba oo jawaabtii halka ay ka soo booseen ilmihii saxayeen oo qaldayba waan ku qanacsanahay raalina waan ka nahay insha Allah waan soo dhaweynaynaa diyaarna waan insha Allah hadda la dhahdo runtii waan ku faraxsanahay in kedis yimaado oo bili aadanku waa ficil kana waa ficilkii bili aadanka uu ka mid yahay waan idinku hambalyeynaya laakiin hal qodob baan dardaaran ku daray runtii ceelka anaga ku jirnay markii la diyaarinayay in laga tala geliyaa way qurux badnayd sababtoo talooyinkaanu bixinayna waxa ka mid ahayd dadku way kala dheereen wala kala dadaal badan yahay manhajkii baanu ku kala horeynaa electronic waa ka dhawaajiseen maadooyinkii baa qaar dhamaadeen qaar aanay dhamaanin kulay gaab badan oo bilaadan ficil markuu jiro way iska xasaasiyad badan tahay barcad iyo bar madow weeyaan iyadoo layga badanayo arkayo ayaan haddana ku doodi karaa manhajka halkaa ma dugsi ahaan maanaan gaarin waa eray idinku soo yaro noqon doona laakiin markii hore waa kii koobaad waa qaadanaynaa waa idinku hambalyeynayna waliba haynoo socdaanu leenahay waxaynu maanta furaynaa tartan aqooneed kadiskaas oo ah ardayda galaasada 8aad inaynu ogaano heerka aqoontoodu gaarsiisan tahay marka maanta waxaan daafuraynaa waa daafurkii 18 bishii 3aad waxaynu noo bilaabnayaa insha Allah sabtida oo ay tahay 22ka disha waxa ka qayb galaya 6 iskuul 6 iskuul sidii loo sheegay 30 waxa weeyaan waa public lixina waa iskuulada gaarka loo leeyahay marka insha Allah dhamaantiin guul baan idin rajaynayaa in yaruma ku darsanayaayo kulli malaakadiska barigoor ku midna laakiin ciyaartoyga waxa la soo kaxaysan jiray form 4 soo kaxaysan jireen oo ay ku kordhisan jireen imakana taa dhiiga soo raacinaysan hadii Ilaahay ka dhigo dhamaantiinna guul baan idin rajaynayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhammaan waan islaamaya maamulayaasha gobolka Marojeex ee ka soo qayb galay barnaamijkan tartan aqooneedka lagu qabanayo 6 iskuul oo kamid ah gobolka Marojeex xeerarka la idin qaybinayo ee ku saabsan tartanka in iskuul kasta iyo maamul kasta iska saaro mas'uuliyad iyo ardayda la idinka doonayo inay yihiin ardayda fasalka 8aad oo khaliya waxaan ku dhiirigelinayaa maanta iskuulaha maqan oo shay toban loo yeeray oo ogaa marka la idin yeero meel la idinku yeero inaad isgaarsiisaan iskuulada kale hebel kala gaarsiiyo tartankaas waa tartan lagu qiimeynayo aqoontii ardayga iyo waxbarashadiisa iyo isdhexgalka guud ee ardayda kulley iskuulada qaar waxaan maalmo dhaweyd ka arkay wasabka maragtada iskuulada inay iskuuladu isbooqanayaan iyagu dhexdooda taas waa guul inay idinku intaan taadicin siyaartaan oo iskuul booqdo aad bay ku hambalyeeyay dhammaan maamulayaasha ka soo qayb galay xafladan waad maasantiin dadaalkiina barta ka sii wada runtii maanta farxad weyn ayay noo tahay inaynu wasaarad ahaan min heer iskuul ilaa maxaan ku dhahay wasaaradda dhexe oo ay hormuud ku yihiin madaxda wasaaradda waxbarashadu wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guudba inaynu soo celino mid ka mid ah maxaan ku dhahay dhiirigelnihii waxbarashadu ay lahaan jirtay oo ay ka mid tahay kadiska maanta aynu halkan daafurkiisa aynu ku shaacinayno oo haddii Ilaahay qadaro aynu bilaabaynaba wiigan imka soo socda bilaabmay haddii Ilaahay raahdo saad ka warqabtaan tartamadu hadday noqoto kuwa ciyaaraha iyo kadisyaduba
waxay lafdhabar u yihiin waxbarashada ardayda tayeynteeda iyo horumarkeeda iyo allahuma salli calaa maxamede dhiirigelinteeda ayay lafdhabar u yihiin. markaa wasaaraddu iyadoo ahmiyad weyn siinaysa waxa weeyaan waxay soo celisay doorkii ay lahaayeen tartanadaasi ay lahaayeen, iyadoo gobollada oo dhan haddii ilaahay qadaro la gaadhsiin doono. waxaa iminka ugu horeyso aynu ka daahfuraynaa waa gobolka Maroodi Jeex, gobollada kalena saas insha Allah u wadaynaa. waxaase iskuuladana laga rabaa haddii ilaahay dhaahdo in tartamadii iskuulada dhexdooda ay maxaan ku dhahay maamulayaashuna ay sameeyaan, oo ay iskuuladu xagga hoose maxaan ku dhahay tartanku ka soo bilaabmo oo kalaas iyo arday iyo inta loo soo tartamo arday kastaaba uu is idhaahdo aad noqotid kuwa laga xulo ee maxaan ku dhahay iskuulka haddii ilaahay dhaahdo mateli doona inay ardaydu taa ku tartamaan baynu doonaynaa. dee tartanku nolosha aadamahoo dhan ayuu muhiim u yahayo xagga wanaagsan markay ummaddu u tartanto meel fiican baa la gaadhaa. bulshada haddii ay meel ay hiigsanayso iyo waxay ku tartamayso haddii ay weydo gaabis baa imanaya. markaa in arrintaasi aynu aada u soo noolayno ayaynu iskuuladana maxaan ku dhahay maamulayaashana aynu marti uga nahay. wasaaradduna haddii ilaahay idhaahdo sanad kastaba kadiska aqoontan la qabto, ka ciyaarahana maxaan ku dhahay la qabto. arrintaasa insha allahu dee inoo wada balana. tartankaasi kadiskaa maanta aynu u fadhino daahfurkiisa agaasimo guud 36 dugsi baynu maxaan ku dhahay ayaynu ugu daahfuraynaa halkan, oo 6 ka mid ay yihiin dugsiyada gaarka ah Soomaaliya ku qaata manhajka ayaa ku jira, iyo inta kale 30 dugsiya kalena waxa weeyaan dugsiyadii hoose dhexe dawliga ahaa. aad iyo aad baad mahadsantihiin. ugu horeyn ilaahay baa mahad leh. ilaahay baan u mahadnaqaynaa nimcooyinka faraha badan inuu noo siyaadiyo. xanuunada waddanka ka jira ee coronavirus-ka ugu horreeyana inuu ilaahayna hareero mariyo, inta ku dhacana ka badbaadiyo, inta dhimatay u naxariisto. khatarta xanuunka aad bay u badan tahay. waxaan u baahannahay habraacii la isla qaatay inaynu sideeda u fulino, oo gaar ahaan maadaama idinku maamulayaashii tihiin ardayda iskuullada joogta inaad kala fogeysaan mitir intii loogu talagalay, in farxalkii la ilaaliyo, in face maskii la ilaaliyo, in dadku aan isku soo ururin marka meelaha la joogo. ayaa haddii kale xanuunku inagu dhex faafaya. haddii inagu faafana dee dadkii waaweynaayay iyo dadkii haldoorkaabuu inaga leynayaa, khasaaro markaa inagu keenaya. marka ilaahay baa haya dhimashada iyo nolosha, laakiin inagu taxadarkii iyo dee waxa lainooga baahan yahay iyo dadaalkii. marka dhammaan maamulayaasha iyo dadka goobaha waxbarashada maamula waxaanu ku adkeynaa in habraacyadii iyo nidaamkii lagu fulinayay markaa ka hortagga xanuunkan ee guddiga heer qaran soo saareen iyo wasaaradda caafimaadka inuu sideeda runtii u fulino. waxaan mar labaad ku mahadnaqayaa markaa waaxda daryeelka oo runtii soo qabanqaabiyey barnaamijkan oo 2 qaybood isugu jira. qaybtii kadiska waxbarashada aqoonta oo lagu dhiirigelinaya markaa isdhexgalkii ardayda iyo aqoontoodii la kobciyo. aad baa wada garanaysaan kadiska runtii qiimaha uu ku leeyahay waxbarashada. waxay wax ka taraysaa markaa ardaygu inuu dadaal sameeyo oo waxbarto oo casharadiisii dib u akhriyo, isagoo markaa uga ujeedadiisu tahay inuu markaa ay dugsigiisu kaalin wanaagsan oo ka galo. dhinaca kale labadii dugsi ee wada ciyaaraya ama dugsiyadii kale ay isdhexgalaya isbarashay keenaysaa. si guudna markaa waxay kor u qaadaysaa markaa wacyiga waxbarashado dhan bay kor u qaadaysaa. marka faa'iido guud bay leedahay. waa barnaamij soconaya. sidaasuu markaa halkan marka laga bilaabo gobolladoo dhan markaa ugu hirgelayaa. waxaa kaloo isna la bilaabaya markaa tartankii kubadda cagta ee dugsiyada sare, isaga insha allah isna dhowaan bilaabmi doona. qorshe wuxuu yahay in xagaaga la qabto mid guud oo tartanka kubadda cagta ee dugsiyada sare dalka oo dhan halkan lagu qabto. marka xataa wasaaradda ciyaarahana kala kaashan inuu mid noqdo markaa si beriga dhaweydoo kale lifena looga daawado dunida oo dhan, heer caalami inuu noqdo. waxaan u baahanay hibada ku jirta carruurteena inay soo baxdo. waxaan u baahanay caafimaadkooda kor u kaco. waxaan u baahanay in maskaxdooda markaa furfuranto. marka ciyaaruhu qiimahaas inoo leeyihiin. wasaaradda ciyaarahana waanu iska kaashanaynaa. iskuullada iyo maamulayaashana waxaan ku dhiirigelinaynaa xiisadda physical education ka la yihahdo ama biiga dee manhajkana way ku jirtaa, laakiin inaan waqtigeedana siino, macallimiin ku filanna siino, ardayga iyo carruurta iskuulka inoo joogtana
aynu u ogolaano markaa inay waqtiyadooda ka mid ah ay markaa ciyaaraan. aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaan ku bogaadinayaa shaqada weyn ee qaranka aad u haysaan. waxaad ku dardaarmay inaad taxadar muujisaan. frontline-kii baynu inagu joognaayo macallimiintu waxa weeyaan iyo dadka waxbarasho ka shaqeeya dee waa meelaha ugu halisan ee xanuunkan khatarta. laakiin waxaan ugu mahadnaqaynaa xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi hogaamiyo iyo wasaaradda caafimaadka inay ogolaadeen in wasaaradda waxbarashada lagu bilaabo iyo dadka caafimaadka ka shaqeeya. liisaskii waynu gudbinay waa la talaali doonaa insha allah, macallimiinta o dhan waa la talaali doonaa. laakiin intaa ka horeysa waynu dee mar kasta inshallah waa kii madaxweynuhu sheegayay talaalka iyo taxadarku marna ma kala harayaan. adoo talaalan baa haddana la doonaya inaad marka dambena aad taxadarkaaga aada wadato insha allah. waana ducayseen. aad baa mahadsantihin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.